soo maray hooyoy macaan intan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا ودي سلامين ملك صار شوكتنا محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناول كوكين أيوة ميسوقلين ناول كوكين ودي سلام يسام ملك صار شوكتنا دافع الدنيا السوماليين وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقة صاحبتنا قالقة آديات بعض أمهات سنتهين وشرف بدنتهين إلهي شرف بدن هيد السيو الحمد لله aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa daawashadiina sheerka layga commentiga asxaabta cusub ee nagu soo beertay kuwii hore nala joogay aad iyo aad baa dhamaantiin mahadsantihiin ayamaha waxba idilama wadaagin wax sheekay idilama wadaagin biisi baan haa hawl adduunyaha hawl kama dhamaato walba Soomaalidu yiraahdeen maanta waxaan u soo galay oo aan rabay inaan idila wadaago sheekiro gaaban gabadh Soomaaliyeed ayaa waxay ka hadlaysaa meesha la social media ay ka hadlaysaa waxay la hadlaysaa gabdhaha marwooyinka ee Soomaaliyeed ee la qabo ama kuwa la guursan doono insha Allah future-ka gabdhaha ka hadlaysaa waxay ku hadlaysaa laakiin ma fiicno iyadoo waxa la yiraahdaa hooyo urto ayaa la yaabaa hooyo urto weligeed magacaas oo kale maan maqal waa ka yaab yada hal hay suule hooyo urtooy gabdhaha Soomaaliyeed caayisa waxay leeyahay hooyo urtooy saan ninkaaga u gal hooyo urtooy haddaadan yani adan uraynin camal ama aad wax fiican sameynay ninku ka ma tagayn bay su'aashaas u jeedaa laakiin waa su'aal khaldan weeyaan ma fahantay haddii yada Ilaahay saygeeda u barakeeyay oo uu yahay mid iska dul fadhiya dhammaan gabdhaha kale ay ku digato raguna ma wada xumo gabdhuhuna ma wada xumo marka hooyo urto waxay ku faanaysaa ninkaaga cunto fiican baa la siiyaa waxay soo sameysay ay soo diyaarsatay roodhi intay sameysay bay leedahay hooyo urto ninkaaga inta suuqa rooti qalalan diqsigu furfulay soo iibinaysid intana nadiif ah sii laakiin nafteedina ma oran wax sii ilmaheedina ma oran wax sii ragana inta badan Soomaalideena gabdhaha marka laga hadlo runtii gabdhaha in badan way khaldan yihiin in badan oo wanaagsan yihiin gabdhaha inta badani waxay isticmaalaan jeebkooda ay rag ku isticmaalaan oo waxay siraahaan markay ama guur soo bandhigayaan ama u guursadaba naga badan baa ragga jeebkooda siiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaynuun buu dadka u soo kala dajiyay wiilkana qaynuun baa la siiyay gabadhana qaynuun baa la siiyay Ilaahay raggu mas'uul inooga dhig dumar haddaan nahay ma hayna ragga mas'uulka noqono hantideena aan siino ama xoogayga waxay maanta dhan soo shaqeynayay soo balanbalayay aan qorax u soo fadhiyay baraf soo marayo dhaxan u soo marayo inaan rag ku qoodiyo 20 shir guriga ii dhex jiifo ma haboona laga qurux badan waa aniga ra'yigayga weeyaan qof kasta ra'yi baa Ilaahay siiyay qof kasta ra'yigiisu ku hadlaya anigu runtii waan ka soo horjeedaa gabdho badan oo aan garanayno oo jira oo dhaba jeebkooda ragga ku isticmaala laakiin jeebkaaga inaad ragga ku isticmaashid maaha bila jeeb haddaad calaf ku leedahay ku helaysaa isagoo aadan jeebkaaga sii baad helaysaa oo kugu jeclaanayo adiga baa qiimii iska qaado waad isqiimo dishay gabadh yahay gabdhihii kalena sharafteed kaga ciyaarto qiimii baad iyagana aad kaga ciyaarto intaad gabdho qiimo isu yeeshaan ama gabadh weyn noqo inta badan waxa sameeya naga carmalka iyo naga guurku ka raago laakiin haddaad qiimo isku yeesho ama carmal noqo ama garab waxaad u garanaysid ama gabadh weyn noqo haddaad weyntahay sharaf baad la weyntahay haddaad carmal tahay sharaf baad carmal la leedahay laakiin hantidayda iyo wixii Ilaahay lacag siiyo kuma isticmaalayo nin Soomaali oo nin bini'aadan jeebka kuma isticmaalayo inta badan wad aragteen oo wax dhacday oo xaqiiqa jeebkayga markaan ku isticmaalo intuu inaga furto oo nagaha inta badan oo saa uga qaado waxay ay haysay buuyaha guriyaan dhisaya xaggan ka keenaya waxaan idin qabanaya xitaa Soomaaliya ku jooga dukaanka yar ay hayso waxa soo xaggan ka rogaya xagga aniga ii dhib adigu dumar baa iska tahay wixii buu haf intuu ka siiyo halka intuu mariyo naagto rabo ku guursadaa meeshuu rabo ku aada marka anigu waa ka soo horjeeda haddaad dumar tahay Ilaahay baa maamul inoo dhiibay maamulka waxa la inoogu dhiibay rag iyo dumar baan kala nahay maamulka qoyska iyo raganimadana mas'uulnimadiisa waxa iska leh ninkan ba iska leh isaga Ilaahay biilkayga dhakada ka saaray isaga Ilaahay marinkaaga iyo masruufka dhakada ka saaray isaga Ilaahay dhakada ka saaray inuu ku shaqeeyo adigana Ilaahay wuxuu dhakada ka saaray ninkaagana adeec
gurigaaga hayso sharaf noqo marwo gurigaaga joogta noqo ilmaha ilaahay ku siiyo soo barbaari ilmaha iyo guriga iyo qoyska iyo xaggan adigu soo jeeso oo ka shaqayso waa sida ilaahay hawshan ugu kala diray laakiin ilaahay inooma dirin gabdhow inaan sharafta iska qaadno xoolahayna inaan rag ku baylgarayno oo siino uusan waxbaba hadduu daro uusan kaa dhigaynba uu guriga kuu dhex jiifo uusan hadal wanaagsan aadan ku qabin oo aadan sharaf uusan kuu yeelayn anaa sharaftii iska qaaday adigaa sharaftii iska qaaday inaan rag markaad u shaqayso adaa sharaftii iska qaaday sharaftaa iska qaadin inaan rag sharaftaa isaga qaadin gabadhay intaas leedahay yuu kaa tegi ama as leedahay yuu naa kala guursani inta badan waxa u sameeyaan waxay siyaa maanta haddaad heshay iyo ku dhaafi ma garatee yuu kaa tegin baa maskaxdaas kaga dhaadhicisee haddaad xolaaga siisidna walla wuu kaa tegaya haddii ilaahay u qoro malaayiin baa ka tagto cagaha dhulka ugu dhufatay dumarka haddii ilaahay kuu hagaajiyana adoo lacag basiin buu kula joogaya laakiin marka u horeysa naftaada aamin maskaxdaada aamin qofnimadaada iyo bili-aadanimadaada is aamin gabadhe maskaxdaada la tasho ma garanaysaa waxaa iska dhigtaa qof mas-uula qof aan rinraac ahayn oo naftiisa ku kalsoon adiga kalsoonidiisa sii haddii kalsoonidu kaa dhimato oo aan isdhaaho ninkan uu kaa tegi aan shilinkayga la daba cararo ama xoolahayga u dhiibo la daba cararo dee muf intuu ka siiyo ka dhaqaaqaya malaayiinba ooyeysa aynu aragno oo le xagganaan idhi guri igu soo dhis naag buu ku aroosay waxaanaan idhi iisoo qabo maxaa waxaaga ugu dhiibaysaa ha u dhiibin hadduusan ahayn nin ilaahay isku kiin hagaajiyey oo wanaagsan oo isku hubta hadduu yahay haa u dhiibo oo isku tala tihiin oo isku gacan tihiin oo isla qabataan oo isla celisaan alxamdulilah u dhiibo ilaahay ha ku barakeeyo laakiin haddaad ogtahay inuu muluq badan yahay ama uu taagtaagan yahay waxba kaagama soo socdaan hantidaada haysaga dhiibin gabadh yahay aniga waa iga talo hadda gabadhi aan arkaya hadalka iga keentay waxay leedahay intay in yaroo muwafaa soo samaysa waxay ku leedahay ninkaaga sidana muwafada loogu sameeya wax duqsigu soo fulfuulay oo maanta dhan suuqa lagu lasoo bandhigay yacni siigaa ku duulaysa diqsibaa fuulaya ciid baa ku dhacaysa wuxuun dee ha iska siini waxaan sii laakiin waxaa ka horeeya horta ma kuu dhiibtay isagu waaye waxaa kan aada samaysida horta isagu jeeb ma kuu dhiibtay mise kuuma dhiiban gabdho badan baa jeebka loo dhiibtaa gabdho badanna jeebka looma dhiibto haddii lagu dhiibto jeebkaaga oo ku yidhaaho walaalay dee waa kan waxaana inoo haya wax wanaagsan oo sharaf leh ninkaaga sii naftaadan ha ka xarimin adiguna wax wanaagsan cun ilmahaagana wax wanaagsan sii laakiin maaha xitaa isagoo wax wanaagsan siinaya inaan naftaydina ka xarimo ilmahan aan ka xarimo isaga ninkaygii oo iga dhaadhacsan waxay ku leedahay haddaad cunto fiican siiso raganimu ku yeelanaya sidan u dhahayo san naaxishooda oo wax isku falo oo ilaahay ka cabsada oo ilaahaygi wanaagsanaa ku abuuray alxamdulilah intaad tiraaho oo kalsooni naftaada siiso waxa intaad ka fakarayso ra'yigaaga baad hadashay waxaad ka fakartaa ilmahaaga naftaada gurigan waxa la soo gelinayo shaqsinimadaada in bili-aadan lagaa dhigayo inaad bili-aadan aan lagaa dhigin bal horta qiimee waxaa lagu siiyo ku qiimee waxa guriga soo gelaya haddii uu yahay nin wanaagsan oo ilaahay nin wanaagsan isiiyo oo dee ilaahay gacantiisa wax inoo soo geliyo yes wax wanaagsan ninkayga waan siinaya laakiin isaga xoo ii keeninba inta badan xoo ma keenaan majoratiga soomaalida inta badan hadda raggii soomaaliyeed ma wada odhanayo laakiin majoratigoodu hadda ma wanaagsana gabdhihii baad aragta oo reerihii la xaramtamaya dabal iyo dabeed caruurtii wada reerkii wada miinsamaan buu ka tegi naa kaluu raacay suuquu ka galay isaga waxay ku leedahay ilbaaka u dhafay maba arag dib uma soo jahan oo kaas oo kale ma waxay kula tahay inaad markaa dharigaa u kalkaliso adigu intaad walaaqdo oo aad iska xarinto ilmi inaad ka xarinto aad siisa miyaa kollay wuu kaa tegaya sharafka maad helaysid wallahi sharaf ku heli maysaan sharaf aad ku helaysaa ma jirto isba sharaf kuuma yeelin laakiin sharaf isu yeelo oo ninku markuu wax kuu keeno uu nin wanaagsan yahay intuu kuu shaqeeyo uu kuu keenayo wuxuu hayo walaalay ama qada ha noqoto ama quraac ha noqoto ama casho ha noqoto wax fiican oo wanaagsan sii waxay ku leedahay haddii ninkaagu uu habeenkii kula seexdo aroortii maaha inuu isagoo aan quraacan uu kaa baxo bay ku leedahay quraac sii hoy haye aan siiyo horta may dhiibtaa ka horeysa hadduu ii dhibto waan siinaya quraac baan siin qadaan siin cashaa siin cunto naf leh oo wanaagsan oo xaragalena waan siinaya laakiin hadduusan kuu dhiibanba ka warra uu yahay raabaruqii reer soomaaliya sheegaye naa raabaruqa baa raarta kuu fadhiya bay tiri inaad adna roorto isna raasamaalka cuno ood ilma ragax ka siisaa soo runtii mayna tegin bay tiri nama kaasoo kale ad gabdhaha ku waaninaysaa inaad maaragtay ay bariiskeeda u karkariso
وما أنت ولا واحد قرح هذا دحنت دبي شو ورد يسي كستير هذا يسوي شيء ناقة إنك أوكر كاريسو وأيسترا هيو كاتج ما تجيسو بعد كم فكريسه ناو حتى كهدوه ربو وحيلها يقرأ قاضي ساعة يصدق وحيلها يقرأ بهلية دون حيلها يكون قرأ هيل لكن قبله أنت إنك يسكت برديسو نفط ظهرت كلسوني إساسي oo qamiga ninkan ha ka dhigin bilaadanka uu ka tagaya inta badan gabdho waxay iska dhisaan uu ka tagay wallahi uu ka tagaya hadad cirka u boodo uu ka tagay ana taaydeeri ar gobadha tiraha nolosheeda saasan ku wada gabu tagay ha soo hadashayado oo halka comment ay ugu soo qorto yaani hadii ilaahay u qoro si kasto dholdhol cirka hadad geyso iyo dhulka hoostiisa hadad gashato waa lagugu iimaanaya hadii aadan waxba u sameeyo qof caadi ah iska dhigtid danahaaga wadatid si wacan la dhaqatid oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sanakal u qorin xaqani xaqantoona waligeeyga maayo adaa lagu dul fadhiyaya markaan ma fahanteen laakiin waxaad ka saartay tii rabbi baad meesha ka saartay marka tii rabbi kuma darine waxa iska dhaadhicisay uu ka tag oo gaajo ka ilaali oo gaajada inaad isku dishid ma ila xalay haduu lacag bayba keenin uu shaqo tagay maanta suuq ku maqnaa wada aragteen ragga Afrika rooti gura ka baxaan maanta dhan iska maqnaanaya qadadii oo talbo doonay inuu yimaado cashadii oo taal inuu yimaado quraacdii oo taal inuu yimaado gabadhii waxa ma hayso waxba uga muu tagin waxa ay hayso oo ubadka dheefsiisan ma jiro waxa qaban karaysay waa qabatay isaga suuq taagay wuxuu leeyahay shaqo ma haya bagamuda oo ma inteerad ba markaa intaan waslad qurux badan oo maxal oran jiray deecheeniga awlka intaan ku soo qaadno aan kaliga u karkaraya ama markaas oo aan halkan de u soo huuriya oo sarta madaxeeda u soo dhiga waxaas wax soo daro wixii aad soo heshaan ama adigu soo helo soo shaqay gabadhay ama isagoo soo shaqeeye cuntada horta ay in laga hadlo ma aha oo isaga kaliya aad tray kulay cuntada ninkaaga si cunto fiican si isaga ka fuuriyeel marka hore isaga siin maayo waxaan u siinaya haduu ii dhibtay dadku inuu la mid yahay wax sharaf labaan siinaya nafteedana ka hormarin maayo ilmahaygana ka hormarin maayo وأنين بلادن كونا بدأ شو كل بعضات المهاج هكحرم عنتده ونكسر يجنا سووا بهين وهذا شيء هو ياته هو أبوه حقه حق أباه سي عرورته وسي في عنه سي أدونا وضب بهنته وحق أجيادك بحق بتقول هذا هاي حق قاضي وحنا نكسر قاضي قبليه هراء برجيه هراء بدو دي هراء تذكرني هراء إسكت شاهلين بين المقتة كلجي أيام ما تروح الوي سجسي جرت عنتده قولي بقول ده ريد مية عيب يا هاي gurigeedii caana ka buuxaan oo hilbiyaalo cunto taalo inay wax cunto ceeb ay ahaan jirtay waxa ku leedahay waa ceeb ma nin baa ila jooga see wax u cunaa hadii waxa lagu leeyahay neef la qaalo wallahi waa dhab waa xaqiiq oo way taalaasha kaas yaani waa shaka runa waxa lagu leeyahay neef haday gurigeeda ka qasho ariya hilibka oo dhan waxa la siin jiray nimanka dariska baa la siin jiray oo Soomaaliyeed oo ereyadan degan waxaas cawaani bay ahayd wixii ilaahay kaasiya ka wax wanaagsan sadaqadna baxso laakiin ilmihi oo hilibka u baahan iyo cuntada u baahan ina dhaafisido cid kale aad u geysid yaa kugu yiri waxaan samee ma sharci bayna ugu qornay ma kitaab lagu soo dejiyo la cuntada iska xarimaha cunina waxaas wax wayaanimo imanka qudheeda gabadha tan waxay ka hadlaysaa yaani ina isaga quraac fiican siiyo ashab fiican siiyo qadaf fiican siiyo isaga naag baa tahay oo hooya tahay adaa guriga lagu qabaaye marka hore adigu soo qurxi gurigaagana qurxi ilmahaaga qurxi wixii ilaahay ku siiyo cun wixii isaga aad siinaysa siiyo oo cunto wanaagsan waa ninkaaga si ma fahant wixii kala dhaafsiisana umada soo dhaweey umadaada wax siiyo ciyal bay u garaacay baabki albaabka la u garaacayo albaabka furaya asxaab waan kala xiray waan joojiyay halka waasan ka sii wadayaay gabdhow sharaf isu yeel aniga way iga waana oo iga tal sharaf isku yeel oo meesha maartay haddaad isleedahay wax walba ninka ka horeysay oo taada ninka ka horeysay oo ilmaha ninka ka horeysay ninku meel kuma geenayo walaalay gacalisa gabadha Soomaaliyeed ninkaagu waa nin bilaadan waa nin Soomaaliyeed nimanka Soomaaliyeedna inta badanba raxmada iyo wanaaga way eedaan wallahi way eedaan inta badan way eedaan uu kugu si waalanaya uu kugu si kibraya dad saad daba dhaxlayso oo wax walba aad u sameeyso oo naftaada ka horeysiisid yaani ninka wanaagsan Ilaahay ku siiyo oo dayibka si wanaagsan ula dhaqan cunta fiican si soo dhaweyso marxabaysi ha ku qaylin naaga badan baa jiro xitaa nin wanaagsan inta Ilaahay siiyo ayada saaw karkarinayso inta maartay uga darta nimcad xijin kar weydo garan weydo iska sii deysa wax badan baan aragnay hadda markuu ka tagana inta way aragto way wixii weydo iyo nimcada ku dhex jirtay oo isjar
markay nimcadii weyda bay hadhow way arkaysaa cagaar dhulka ku dhufanaysa odhanaysaa ii soo noqo allah iga raalli ahoo khalad baan sameeyey oo reedi wuu kaa tegay marka hadhow wuu ismacaashanaya kuma soo noqonaya buu odhanaya ma fahantay ceebka weyn miyaa jirta adoo naag weyno oo sharaf leh oo ninkaaga intaad kibir ku eriday hadhow markuu kaa tegay ama boos kale uu helay ama magaaladiisa uu galay oo kaa nastay inaad daba carartidna sharafi kuma jirto oo sharaftaada waa dhimanaysaa oo hadhow haddana uu ismacneeyo ku yaho inaad raalliga ahow halkaasaynu kala joogayna ceebka weyn ma jirto milyanis gabdha aba waxaa sameeyo hadhow yidhaha ninka raalliga ahow haa ma garanay waa khaldam afkaasaanu aragnay wax badan baan aragnay oo ka ceshahaato iyo hadda kuma raba ahay waalin ahay wareerin inaad deerdhaaf ay odhanaysa soo noqo markaa sharaftaa iska qadin calaa kulli xaal shawarkayga ma badinaye gabadhay wixii lagu siiyo ninkaaga u kari nin wanaagsan haddii ilaahay ku siiyo sharaf u yeel adigu sharaf isu yeel qoys wanaagsan noqda ubadkiina haysta ubadka iyo caruurta yacni ninkaaga iyo naftaada ubadka ka horeysii markaad ubadkaaga qancisid waxaad u taraysa u tarto ay cuntaysiisid ninkaagana wax si adiguna u cun laakiin maa inaan idhaaho carruurta afxidhan iyo aniga afxidhan baa ninka wax siinaya ninkuu iga tegaya gogol fiican baan siinaya guri fiican baan siinaya cunto fiican baan siinaya waxa oo dhow masagaad wada siinaysa marka carruurtii dhammaydna xaggaad ku ilowdi na carruurta wax siiya oo sharaf isu yeela oo xaqaagan aad ninka siinayso iska daa ilaahay isagu mas-uul uga dhigo mas-uul isaga kaa inuu xaqaaga ku siiyo oo mariin iyo masruuf iyo biilba uu ku siiyey isaga ilaahay uu dusha ka saar hadduusan intaa keenayn oo uusan ku filayn dee adigu haddaad iska rabtid inuu guriga kuusii joogana ku joogo adaa xor ah haddaad rabtid inaadan sidan kusii noolaan karin adaa xor albaabkaaga markaana waa kuu furan yahay gabadhay ma fahamtid marka runtii aad iyo aad waxaan ku xanaaqay gabadha tan raggii cirkaa geysay le ninku yuu kaa tegi ninka cunto fiican sii casho fiican sii quraac fiican sii oo hadduusa ii dhiiba maxaan siiya waa yeela gabdhuhu ma wada haystaan biil qaar badan baa shilin ba haysane aan loo dhiibini oo haddana jecel ninkeeda inay wax wanaagsan siisee haddaan loo dhiibin ma dadka gabadha usoo xadaysaa ma dadkay usoo baryaysaa waa haddii lagu dhiibta wax wanaagsan sii haddaan lagu dhiiban intee ka keena markaa ma cirkaa soo jebina xaggee laga keena naa wax isku fala oo xishooda oo qiimo isu yeela qiimaha iska qaadina qiimo isu yeel waa lagu jecel yahay gabadhi gurigaa tahay marwaa tahay adiga ninkaaga haddaad soo dhawaysato wuu ku jeclaanaya laakiin maaha inaan cunto caloosha uga buuxiyo dhaha caloosha iyo cuntada lagu jeclaanaya cuntada lagu isku jeclaan maayo cuntada kaliya lagugu jeclaan maayo maaha inaad tirahay naagaan cuntada isleedahay yuu kaaga teg laakiin marka u horeysa nadaafadaa ka horeysa hadal wanaagsan baa ka horeeya deganaashiyaa ka horeeya horta gurigaaga ma lagu degan yahay haddaad xitaa adigu aadan deganaynba gurigiiba ninkaaga uusan ku deganayn oo aad ku qaylinayso ama dhibayso ama u nin nadiifta jecelo guriga urayo u arko oo ilmihoo dayacan u arko adoo wareegayo u ka arko dee cuntadii badnayd aan siinaya waxba ii tari mayso anagoo ku tacbay oo cunto siiyo quraac u kacay oo casho uu sameeyo qado u orday oo shilin la-aan ugu shaqaynayay haddana hadda wareeg badan igu arko ama guriga uskaga igu arko ama ilmihii isdhex yaalla igu arko ama anoo fadhiisana habeen baaroos tagay u arko dee ima rabo maxaa markaa faa'iiday dhaqaaliina iga dhacyo iga baaba-ayay oo isagaan dee siiye waxaan helayay isagana iga carar xaggaan marka kasoo markaa waa inaad sarirta intaad kusoo urtaan sarirta hoosteedaad ka weydaa ninka wax ku siiya wax la siiya kaan waxba ku siiyan waxba lama siiyo naftaada iyo ilmahaaga iyo sharaftaadana ka raaca insha allah hadalka waan soo gaabinayaa gabdhow khayr iyo caafimaad baa idinka tegay inaan ragna wixii xanaaqaya ha xanaaqaan kii aan xanaaqayna igu raacsanaa nin baa tahay oo ilaahay nin buu kaa dhib oo ilaahay raganimada waxaa loo dhiibay raggaa loo dhiibay mas-uulnimada ilaahay isagaa mas-uul inooga dhig wax kasta isagaa laga doonaya adiguna mar waa tahay gurigaad fadhidaa gurigaaga iyo ilmahaaga ka adkooba laguyiya wixii kuu yimaada islaamu yacni labada family islaamka kale ummadda ilaahay iyo ninkaaga waad raaligelisid ma fahantiin yaa saxaab lagaaga tegi maayo keliya caloosha waxyaalo badan baa lagaaga tegaya haddaa calooshoo dhirgaya xubsata ah ninkayga saa u cunaya dee uga cararaya khayr baa idin dhaafay maca salaam